قصة طفيل بن عمر الدوسي saxaabigaasi la odhan jiray طufayl ibnu camar addawsi qabiiladiisa oday u ahaaya nin gabyaaya ahay oo xikmad badan ayaa iska soo cimro tegey dabeetana wuxuu maka ku soo beegmay wakhti siyaaji iclaamiyi uu ka jiro cunaqabatayn aan idhaahdo xooggan oo xagga miidiya ah ee haysata nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ay ku guulaysteen nimankii quraysheed inay dadka ka dhaadhiciyaan inuu nin ama sixiroola ama khatari uu joogo oo loo baahan yahay qofku inaanu hadal ka maqlin maaha inaanu raacin waa inaan codkiisu ku soo gaadhin طufayl ibn alcamr addawsi oo nin weyna oo odaya oo reer u talin jiray oo gabayaaya oo la yaqaanaa wuxuu leeyahy warkii siday igu akhrinayeen waxay gaadhsiiyeen inuu dhagaha fura soo gashado codbi intuu goostay inuu labada dhagood fureeyo uu isleeyahy bilaaba a iska soo horbaxdaan yaad codkiisa maqli inuu u tegayo ama uu socdo ama caynkaase waa haddiiba coaccidental si uuna hayru caadi ah isugu soo horbaxdaan yaydan codkiinu isku soo iyo codkiisa aad maqlin wuxuu leeyahy markii aan meeshii yimi haddana wuxuun baan rumaystay war nin weyn oo caqli labaatee maxaa furtan dhagaha kaa geliyey nin weyn oo waxa xun iyo waxa san kala garanaya nin weyn oo gabayga iyo kahaanada iyo warka dadka kala saari karaya maxaa dhagaa kuu fureeyey furtaan iska tuuray buu yidhi dabeetana intaan u tegey baan ku yidhi buu yidhi bal waxaad adigu hayso ee dadka u sheegaysa ii sheeg nabigu calayhi salaatu wasalaam tawxiidkii buu soo bandhigay wuu islaamay bimujarad inuu islaamay oo ah inuu fahmo islaamnimada iyo waxay xambaarsantahy oo ah inuu ashahaato ayuu wuxuu qaatay go-aanka ah mas-uuliyaddu saarantay isaguna maanta laga bilaabo inuu diintan dadka ugu yeedho cilmiguu bartay waa intaa yaruu nebi moxamed la joogay calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuxuu nebiga ka codsaday ama ka warsadayba in ilaahay subxaana wa tacaala uu alla u baryo tolkiibuu ku noqonayaa iyo in diinta tolkii aqbalaan طufayl ibn camr idawsi dib buu u laabtay tolkii buu u tegey diintuu ugu yeedhay waa la hadlay meedhadhi yar mooyane waa laga dhagaaday waa la maqli waayey markii la maqli waayey muus odhan dee wataa cidi kaa dhegaysan weyda adigu xilkiina gudatay waajibkiiska riday cidina kaa dhegaysan weyday ee waa qof muslim oo sida hamiga diinta tan iyo inuu cid gaadhsiiyo aan ku qanacsanayn mujarad in la diidayo qura isagoo cabanayuu nebiga ku soo noqday calayhi salaatu wasalaam dabeetana nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow reer dows gaalnimadii waa ku madax adeygeen iyo ay wadeen imaqli waaye ilaahay u bari inay ilaahay bele ku soo dejiyo habaar dadka diiday inay waxay islaam dhegaystaan habaar xadiiska bukhaari siduu sheegaya saxiixiinkaba ku yaala bukhaari iyo muslimba nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi allaahuma hdi dawsan waati bihim halkii laga sugayay inuu habaaro nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ilow reer dows oo hanuuni iyagoo muslimana ay yimaadaan waa u duceeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ku noqday isagoo weli dareenkii qaba oo dacwaddiisii wada culamaa'i taarikh waxay yidhahdaan 78 qoys isagoo wata ayuu markii dambe nebiga calayhi salaatu wasalaam u yimi oo soo wada islaamay ragguu wato yaa ka mid ah diinta alla inugu anfacayba kuwiina soo gaadhsiiyey abaa hurayre soo ma maqashaan abaa hurayra waa min qabiilati daws waa dawsi abaa ka mida ragguu keensaday طufayl ibn camr dawsi dadkuu diinta gaadhsiiyey bimujarad inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam rumeeyey ayuu wuxuu xambaaray hamiga ah inuu diintan qaado oo uu cid kalan gaadhsiiyo su-aasha isweydiinta le waxa weyaan inagu imisaynu diinta ku jirray imisaynu se gaadhsiinay intaad muslim ahay intaynu diinta tan haysanay intaynu hamiga qisatu abi dar alghifaariy saxaabigii la odhan jiray laba xadiid oo midna bukhaari iyo muslimba wada warinayaan oo ibn cabaas leeyay midna muslim keligii warinayo oo bacdi nuqaad ikhtilaaf uu ka jiro jamcintoodana aanay fududayn si kastaba ha ahaatee haddaynu intaynu inagu uga dan leenay soo qaadanay inka ku yaala bukhaari iyo muslimba
abi dar alghifaari nin xaq raadinayuu ahaa akhiiran wuxuu yimi magaaladii maka ahayd isagoo fii dannisu isaguu u malaynayo sheeganaya inuu yahay rubcu lislaam fii waqti isaguu fii xuduudi cilmi bay culammadu ku fasiraan inay ahayd laakiin dad kaloo iyana sheeganayaa jira waayo waxay ahayd cahdi dadka muslimiinta ahay la cadaadinayo oo wax waliba ay qarsoon yihiin oo dadka u yimaada nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu islaamnimada u laqino uu yidhaahdo tolkaas kaga noqo oo markaad maqashaan inaan guulaystay ii kaalaya abidar wuxuu leeyahay waxaan imi anigoo rubculislaama buu leeyahay islaamkaba kii afreeya saddex xun iga horraysaba abidar alghifaariy magaalada maka buu soo galay maka wuxuu soo galay iyadoo iclaamkii aynu sheegaynay taagan yahay qof islaam sheegan karaa aanu jirin oo cidi ku dhawaaqaynin magaaladu iska soo galay isagoo iska aamusan riwaayadka qaarkood waxay sheegayaan cidna waxmaan weydiin buu leeyahay dabeetana markii dambaan mid daciifsaday buu yidhi mid dadka ka midaan siri buu yidhi kaasi waa iska daciif waxna ma oge kaa haddaad iska weydiiso tidhaahdo war ninka saabiga ah ninka diinta cusub sheegaya xaguu joogaa malaa waa iska kaa xil qarinaya midaan yaro daciifsaday buu yidhi markii dambe ku yidhi buu yidhi ka saabiga maxamed xaguu jooga waaba igu qayliyey buu yidhi kiina kor buu qayliyey hada saabi hada bal kan diintii ka baxay ee caynka waaba lagu soo xumo waa la tumay bimujarad inuu cid weydiiyey xaguga laga helayaa ayaa lagu tumay sidii loo garaacayay buu cabbaas soo gaadhay dabeetana wuxuu ku yidhi war ninkanaa garaacaysaan ma garanaysaan war ninkani waa nin khifaara khifaar waa qabiilooyinkii dhaca iyo bocaan baxay isla markaasi waa nin qabiilkiisa ay yaalliin waddada ay qurayshi safaradooda mariyaan safarka shaam marka lagu socdo waddada la maro qabiilkiisa degan quraysh mantaqii ay fahmaysay buu cabbaas kula hadloo ah hadda kamaydan maarmin buu leeyahy shaam inaa u safartaan ninkaa tumaysaana waa nin bani khifaar ah markaasaa layga foqay buu yidhi oo gacanta layga qaaday riwaayadka qaarkood waxay sheegayaan markaa gaar ahaanta saxiixaynku waxay sheegaysaa meesha isagoo iska fadhiya inuu soo maray cali ibn abi aalib oo nin yari uu arkay ninkan qariibkaee meesha iska fadhiya ee iska qariibnimadu ka muuqato markaas ku yidhi mala maad inakeen waa iska dabagalay maana wada hadal buu yidhi gurigii buu geeyey habeenkii buu marti sooray subaxii buu alaabtiisi iyo wixii qarbadkii yaraaya intii uu biyaha ku sitiyey wixiisii buu iskala soo noqday abidarmaga wuxuu ku soo noqday makadiisii beytkii meeshii anigkii dambu haddana cali soo maray ninkii oo war weli miyaad helin buu yidhi ciddii aad daydayaysay inakeen waa kaxeeyey habeenkii labaadna waa casuumay waa soo noqday habeen saddexaadkiiba haddana ninkii arko cidlada iska fadhiya calaa haddana casuumay markii dambe wuxuu ku yidhi miyaad ciddaad u helisiyo waxba toona helinoo waxaan rabo aan ku weydiinaya ii ballanqaad buu yidhi inaad qarinayso waa kuu qarinayaa buu yidhi waxaan doonayaa buu yidhi ninka diinta cusub la yimi iyo caynkaasiya soo dabagal buu yidhi halkaan ku socda weeyaane waxaan ka shakiya haddaad arka buu ku yidhi riwaayadka qaarkood waxay leeyiin wuxuu yidhi sidii nin biyo qubayaan iska dhigayaa markaa faham meeshu waa minaysantahay isku imanin riwaayadka qaarkoodna wuxuu odhanayaa kabahaan hagaajsanaya haddaad aragto anigoo kabahayga tumtumayo hagaajinaya waa ma hagaagsane saa ogow sidii baan ku dabagalay buu yidhi waa laba nin oo isdaba socda oo huro wada socda oo qarsoodigu uu gaadhsiisan yahay inaanu sheegan karin meeshay ku wada socdaan kadibna astaantii iyo waxbuu tusay sidii buu ugu yimi nebigu calayhi salaatu wasalaam su-aalihii waday weydiiyey xadiidka waa soo koobaynaa maxalushaahidkaynuu soconnaa maxalushaahidka waxa weeyaan wuu islaamay markuu islaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u tilmaamay inuu tolkii ku noqdo marka uu maqlo inuu guulaystay unana u yimaadaan waayo nima qariiba oo aan u dhalan magaalada oo caynkana dacwadda culaysunbuu kuyo cidima ilaalin karayso wuxuu uhi waan noqonayaa laakiin wuxuu dareensan yahay dacwaddan mas-uuliyaddeeda inuu la asrakhanna biha waa ku dhawaaqi doonaa buu yidhi quraysh dhexdeedaan kaga sii dhawaaqi doonaa dib uu soo laabtay dabeetana intuu maka is dhex taago ashhadu an laa meeshii guriga nebiga lagu socdo la qarinayay ayuu wuxuu isla dhex taagay inuu ashahaada kala dabeetana waa lagu boobay dagaalkii
cabaas ba haddana ku soo baxay waa arrinkan aad tumaysa waa nin reer khafaari miidan garan waa laga tegay tegi maayo buu la asrakhana biha waa ku dhawaaqaya maalin saddexaad dib oo haddana kaga dhex dhawaaqay sidii oo kale loo tumo haddana cabaaskii baa loo bixiyay oo ka tegay yacni bimujarad inuu islaamay ayuu wuxuu dareemayaa dacwadan in mas-uuliyadi ka saarantahay walow lagu dilayo ama naftiisa dhibi ka soo gaadhayso ama mushkiladi ka soo gaadhayso ay rakhiis la tahy wuxuu arkayaa ammaanatun calaa caatiqihi inay tahay inuu dadkan kelimatu tawxiid ugu yeedho mahmaa kaanat iduruuf ama hala dila ama hala daayo ama wixii la doona hala sameeye intuu dacwo gaadhsiin kara ama diin gaadhsiin kara inuu gaadhsiiyo waxay ahayd baynu leenahay bimujarad inuu qofku jundi muslima noqdo dareenkaa inuu islaamay baa wuxuu gaadhsiinaya baaro diinta tan inuu dadka u sheego haddaynu qiso saddexaad saxiixu muslimka ku taalla soo qaadano damaad alasdi saxaabigaasi war badan baa soo gaadho sheegaya iclaamkii dee meesha lagu haystay ee dadka la khuuqiyey nebi maxamed inuu nin waalan yahay oo jimaniya wuxuun galeen ama balaayo kaluun haleeshay oo qof derderan oo wuxuu yaro dhiman yihiin inuu yahay waxaan u imi buu yidhi kollayba ma ka gaadhaye bal ninkaa intaad raadiso waa intaasoo ilaahay gacantaada ku caafimaad yahaye waxbuu tuftufi jiray aad bal waxoogaa ku akhridid qoladii fii zaman aljaahiliya jibankan iyo waxaan ilaa weligeedba waxbaa lagu tufi jiray mid saxa iyo mid qaladaba kiniisaddaa ku tufto muslimkaa ku tufo qaar kalea ku tufo waa loo fooxiyaa waxaan sidhi buu yidhi bal waa intaasoo ilaahay gacantaada ku caafimaad yahaye aad waxoogaa ku waa soo raadiceeyo waanu imi buu yidhi waxaan ku idhi buu yidhi niyo waxaan maqlay in xanuun ku hayo dee waxaan rabaa inaan waxoogaa kugu tufee maxay kula tahy waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iclaamku markuu wax buunbuuniyo siduu bini aadamka u bedelo ninkii dadba ugu caqli badnaa ilaahayba basharka ka dhex doortay rasuul iyo nebi ahaa ummaddan dhan loo soo diray ayaa iclaamku dadka wuxuu ka dhaadhicinaya inuu nin waalan yahay inuu nin waalan yaho waxu dhiman yihiin kadib markaanu imi buu yidhi waxaan idhi buu yidhi waxaan maqlay in dee xanuunku soo gaadhay waxaan rabaa inaan waxoogaa kugu tufo nebigu calayhi salaatu wasalaam khudbat alxaaj ayuu akhriyay baa la yidhahdaa in alxamda lilahi naxmadu wanastaciinu khudbadaasuu akhriyey man yahdi illaahu falaa haadiya lah falaa mudila lah waman yudlilu falaa haadiya khudbadaasuu nebigu akhriyay calayhi salaam biriwaayaatiha almukhtalifa axaadiista qaarkood xamdale iyo intaas axaadiista qaarkood waa ka yara dheerayaan naska saxiixu muslim uu ka gaaban yahay ama dhammee ama gaabe adigu saa doontaba bal nusuusta isugu duduwo khudbat alxaaj ayuu nebigu ku akhriyay calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuxuu ku yidhi acidhaa calaya iigu celi markaasuu ugu celiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasuu ku yidhi acidhaa calaya iigu celi mar saddexaad buu ugu celiyey wuxuu yidhi anigu gabayaa waan arkay oo sixroolo waan maqlay oo kaahin waan maqlay oo kan waan maqlay warkanaad sheegaysaa intaa midna uma eka dee nin waalan haddaad hadal saddex goor tidhahda ku celi buu ku derderi lahaa marka hore markuu wax kuu sheego nin waalan haddaad tidhaha ku celi wax kaloo haddana akhrii lahaa dee mar labaadka haddaad tidhaha ku celi wax kaluu sheegi lahaa waxaa muuqataa ninkani nin waalan inaanu ahayn nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo muuqda waxaanuu ka hadlayaa khudbat alxaaj waa tawxiid iyo xamdale iyo istikfaar iyo tashahud wuxuu ka warramayaa inay tahay mantiqii dacwada islaamigaaba wixii uu dadka ugu yeedhay nebigu calayhi salaatu wasalaam calaa kullin meeshaan u socdaa waxa weeyaan wuu islaama damaamkii rabay inuu wax ku tufo nebiga calayhi salaatu wasalaam wuu islaamay markuu islaamay ayuu wuxuu ku yidhi keen gacanta baycan kula gelaya heshiis baan kugula gelayahay waa islaamkan qaadanaya nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu heshiiska la galay buu wuxuu ku yidhi wa calaa qawmik keligaa ma rabo dalkaana heshiis ugula gal waa ninka hadda islaamay ayaa laga rabaa dacwaddaa inuu xambaaro oo qabiilkiisii intuu u tago inuu isagu diin gaadhsiiyo ninkaa hadda islaamay ayaa la rabaa inuu xambaaro diinta tana uu gaadhsiiyo tolkii oo uu nebigu rabaa inuu heshiis hadda kula galo calayhi salaatu wasalaam markaasu wuxuu yidhi wa calaa qawmi naftayda iyo tolkayba labadaba waa kugula gelaya tolkiina wuu gaadhsiiyey diintii yacni waxay ahayd dacwadda islaamigu fii cahdi asaxaaba oo fii jiili muslimiintiiyo koowaad wax la mida qariinu ila alislaam qofku inuu islaamnimada qaatay oo uu muslim noqday ayaa waxay ku fillayd
inuu daaci yahay inuu diinta soo galay ayaa waxay ku filayd inuu daaciyey kuwa aynan arkayninna qur-aankaa saasoo kale inooga sheegay yani saxaabadii la arkayay bidhaantooda la yaqaanay iyagaa ka warramay axaadiistaa soo aroorisay nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam jin iyo insiba waa loo soo diray xataa jinkii rumeeyey dariiqadan buu isna maray jinku inay dariiqadan mareen iyaga axaadiis saxaaba inooga soo warisay ma jirto laakiin rabu samaawaati waalardi baa ka warramay iyana ka warramaya inay baabkan u wadeen saa daraaddeed baa ilahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy waid sarafnaa ilayka nafara min aljini yastamicuuna alqur'an falama xadaruuhu qaluu ansituu falama qudiya wallow ilaa qowmihim mundiriin qaluu ya qowmana ina samicna kitaaba unzila min bacdi muusa musadiqa lima bayna yadayhi yahdi ila alxaq waila طariiqi mustaqiim ya qowmana ajiibuu daaciya allahi waaaminuu bih yagfir lakum min dunuubikum wayujirkum min cadaabin aliim waman laa yujib daaciya allah aayaadkaasi fii suurati alaxqaaf gabagabadeeda ku jira rabbi subxaana wa tacaala wuxuu leeyay waid sarafnaa ilayka nafara min waxaad xustaa nebi maxamed oo dadka uga warantaa markaanu xaggaaga u soo weecinnay koox jinka ka mid ah oo ay ku dhegaysteen baa ilaahay leeyo qur-aanka ay dhegaysteen markii ay qur-aanka maqleenna war bal aamusa bay idhaahdeen aamusa falamaa xadaruuhu qaaluu ansituu fiican u fahamna warkuu sheegaye markay aamuseenay dhegaysteen qur-aankiina falamaa qudiya wallow ilaa qowmihim mundiriin baa ilaha yidhi nebi maxamed markuu qur-aanka dhammeeyey iyana ducaad bay ahaayeen waxay bilaabeen inay tolkood u yeedhaan baa la yidhi subxaana wa tacaala yani qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa bimujarad inay qur-aan dhegaysteen oo islaameen oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam rumeeyeen inay dareemeen mas-uuliyadda in dacwadan iyagana saaran tahay inay xambaaraan markaaba oo cidda ka dambaysa cilmi intee laga bay barteen waxaa la sheeguun inay aamusays yidhahdeen oo qur-aan dhegaysteen intaasay barteen tii qur-aankii uu nebigu akhrinaya calayhi salaatu wasalaam ayay barteen kadibna way laabteen waxay la laabteen wallow ilaa qowmihim mundiriin qaluu ya qowmana ina samicna kitaaba unzila min bacdi muusa musadiqa lima bayna yadayhi yahdi ila alxaqi wa ilaa طariiqi mustaqiim kayow bay yidhahdeen waxaanu soo maqalnay kitaab la soo dejiyey muuse gadaashi oo wixii muuse uu wadayna rumaynaya xaqana dadka ku hanuuninaya iyo jidka toosan yaa qowmanaa ajiibuu daaciya allah tolkayow maqla ilaahay subxaana wa tacaala kan diintiisa dadka ugu yeedhaya wa aaminuu bihi yakfir lakum allana rumeeya subxaana wa tacaala iyo rasuulkiisaba ilaahay baa dembigiina dhaaf iyo cadaabka idinka dhow yacni waxaan u daliishanaynaa un inaan fahamno haddaynu insigii saxaabada a fahamnay saxaabadii jinka ahaydna ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam diinta ka dhegaysatayna inay mas-uuliyaddaa xambaareen bimujarad inay qur-aanka maqleen bal aan eegna siiradii ambiyada qur-aanka ilaahay kaga warramayo iyo kuwii raacay ee nebiyada la socday nebi nuux baa ilaahay wuxuu inooga warramaya barnaamijkiisii dacawiga ahaa iyo siduu dadka ugu yeedhayay nebi nuux ilaahay wuxuu ka tilmaamaya inuu yidhi inii dacawtu qawmii laylan wa nahaara ilaahay ow tolkay ama dadkayga waxaan u yeedhay maalin iyo habeenba shaqadatan ama brogramkaygu wuxuu ahaa wakhtiga la qabanayaa habeen iyo maalinba wakhti aan dacwo ka fadhiistay ma jirin buu tilmaamaya nebiga caynkaa u dhawaaqaya maxay jawaabtu ahayd ay ula yimaadeen فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا إلهو yeedhmada idiina firdhashun bay usii kordhisay buu leeyay mar kastoo aan ugu yeedho diinta ilaahay iyo ilaahay dembi dhaaf inay weydiistaanba dhagahabay furaystaan oo farahay dhegta geliyaan oo ma rabaan inay maqlaan oo iska kay duuduubaan waa isweyneeyaan oo kibraanoo yacni dheglay mar dhaadhiciya buu leeyahy qofka bini aadamkaa inta badan hadduu la kulmo dhaga adayga intan leeg waxaad mooddaa inuu iska caajiso ama is idhaahdo dee adigu xujadii ku ogtay waa kuwa kaa dhaga adayga iyagay xilkoodatay laakiin waxaa ilaahay qur-aanka inoogu tilmaamaya nebi nuux in aanu intaa ku joogin inuu asaaliibtana u gagadiyey wakhtigoo dhan ma ku isticmaalay haddana wuxuu is idhi malaa usluubkan hadduu socon waayey
this way hadday kugu geli weyday other way tilmaam ama ariiq kale eeg qaab kaloo aad dadka diinta ugu sheegto uma inii dacawtuhum jihaara uma inii aclantu lahum waasrartu lahum israara nebi nuux wuxuu leeya ilaahayow kor baan ugu yeedhay oo hoos baan ugu yeedhay waa la faqay waa la shiray waa u sheegay kor baan calan ugu sheegay si wal oo la sameeyaba asaaliib kasta oo wax loogu yeedhi karo waan isticmaalay waxaana qur-aanku inoo tilmaamayaa inuu yeedhayay 1000 caamin ilaa 50 sana 1000 sannadood oo laga jaro 950 sannadood inuu dacwadaasi waday qur-aanku wuxuu inooga warramayaa nebi nuux markaa barnaamijkiisa dacwad habeen iyo maalinba inuu ahaa usluubku isticmaalayana inay ahayd wax kastoo possible ah waxaa qur-aanku kaloo ka warramay maalan ambiyadu inaanay fursadnaba dacwadooda dhaafaynin aanu qofku ahayn markaan anigu jaaniska leeyay ama markaan wakhtiga fiican haysto ama markaan badhaadhaysanayo ama markaan caynkan ahay baan diinta sheegaya ma aha ilaahay nebi yuusuf uu ka warramaya waxaa la yidhi wadakhala macahu sijna fatayaan laba wiil baa la galay xabsiga oo waxay ku yidhaahdeen qaala axaduhumaa inii araanii acsiru khamra midba wuxuu yidhi anigu waxaan is arkay yacni waxaan ku riyooday anigoo ama se tuujinaya khamri anigoo casirayo oo cinab ka tuujinayo samaynayaan ku riyooday kii kalena wuxuu yidhi waqaala alaakharu inii araanii axmilu fawqa ra'si khubsa anna waxaan ku riyooday oo arkay anigoo dushayda kimis ama roodhi ama laxoox waxaad doontaba dhaho anigoo raashinkaa sida oo ta'kulu tayr oo ay shimbiruhu ka dul cunayaan baan ku riyooday ee nabi'na bitawiilih inaa naraaka min almuxsiniin bal nooga waran fasirkeeda noo sheeg waxaanu kaloo ku arkaynaa inaad nin ixsaan badan tahay daacigu walow kaafirna ha noqdee waa nin muxsin oo cidda dad kasta u samafala waayo waxaynu arkaynaa nebi yuusuf oo maxaabiistu samafalay waxaynu arkaynaa nebi yuusuf oo boqorkii soo xidhay intuu riyooday cid riyada u fasirta waaye aan odhanin waa nagala tagorado adiga xabsiga nugu cid ku fasirta doondoone isagoo xabsiga ku jira inta la daba socdo laleeyahay noo fasir riyada tan boqorkii baa u baahanay oo u arkaya inuu bulsho badbaadiyo oo muxuu ku badbaadinayaa brogram iqtisaadiya inuu dego khita iqtisaadiyo 15 sannadood ee soo socda 7 sannadood oo abaari inay ku dhex jiraan bulshadii iyo waddankaasi siday uga badbaadi lahaayeen abaarta waa bulshiyo waddan ayaa ah waa bulshiyo waddan gaala ah ma aha dad muslimiina khitadan umu degayn dad gaaleed buu badbaadinayay waxay tilmaamaysaa ninka daaciga inuu muxsin yahay walidaalik ayaa waxay dhaheen nebi yuusuf oo waxaanu arkaynaa inaad nin muxsin oo ixsaan badan tahay ee noo sheeg fursaddaasu ka faa'iidaystay muu bilaabin inuu fasirkii sheego ee wuxuu bilaabay kow horta inuu xasiliyo oo qalbigooda xasiliyo ah halkii fasirka aad ka helaysaan waa joogtaan horta maydan khaldamine meeshii wax laydinku sheegi lahaa waa timaadeen qaala laa ya'tikumaa طacaam turzaqaani ilaa naba'tukumaa bitawiilihi qabla an yaأtiyakuma dalikuma mima callamanii rabbi inii taraktu millata qawmin laa yu'minuuna billah wahum biاlaakhirati hum kaafiruun waa raashin idiinma imanaya laydinku arsaaqayaa buu leeya ilaa iyo ta'wiilkiisa waan idiin sheegaya intaanu idiin imanin arrimahanina waa arrimihii rabbiga i baray aniguna waxaan ka imi buu leeyay duul aan alla rumaynaynin aakhirina ka gaaloobaya waan ka tegay kuwaa diintooda buu leeyay wuxuu bilaabay markaa dacwa fursaddaa inuu ka faa'iidaysto waاtabactu millata aabaa'i ibraahiima wa isxaaqa wa yacquuba wuxuu leeyahy anigu waxaan ka tirsanay qoys ilaahay diintiisan oo waxaa ku abtirsadaa nebiyo yacquub isxaaq ibraahim ma kaana lanaa nacbud ma noo cuntata buu leeyahay an nushrika billahi shay inaanu ilaahay cidnaba ugu shariig yeelo dad mu'miniin oo caynkaasaanu nahay inkastoo dadka inta badani ka gaalowday warkaa markuu waday ayuu haddana wuxuu bilaabay inuu iyaga la hadlo yaa saaxiibaya sijin war labadan xabsiga u saaxiibka ah hawi dhegaysta buu leeyahy aarbaabun mutafariquuna khayr am illaahu alwaaxid alqahaar am illaah alwaaxid alqahaar war ma rabbiyada tirada badan baa fiican
mise inay caabudaan ilaaha keligaa dacwadiisii buu bilaabay iyagu riyay fasirkeeda doonayeen wuu u sheegay riyada inuu fasirkeedii hayo laakiin jaaniskaa yar buu ka faa'iidaysanayaa ah inuu messajkiisa isna dhiibto dacwadiisa inuu dhiibto oo uu leeyahay markaasi anigu war ma rabbiyo badan baa fiican in la caabudo mise ilaahay keligii maa tacbuduuna min duunihi illa asmaa'an samaytumuuha antum waabaa'ukum ma antum biha min sulطaan wuxuu bilaabay inuu tilmaamo tafniido naqdiyo criticize gareeyo aalihadan ay caabudayaan iyo waxaan ay haystaan iyo waxaan inay wax xaqa ahayn ma waxaa caabudaysaan buu leeyahy wax kale ma caabudaysaan ilaa iyo magacyo una idinku intaa bixiseen ilaahya ka dhigteen oo aan ilaah ahayn waxaan sulطaan lahayn wuxuu bilaabay inuu sharxo tawxiidka in alxukmu ila lilah amara an laa tacbuduu ila iyaah dalika addiin اlqayim walakina aktar annaasi laa yaclamuun markuu muxaadaro dhan oo 3 aayadood oo qur'aana ilaahay inoogu tilmaamayo oo tawxiidka ka warramaysa oo meeshii uu u bedelayba madraso tawxiidka lagu sharxo ayuu wuxuu bilaabay intaa kadib inuu warkoodii siiyo oo ah yaa saaxibaya sijn ama axadukumaa fayasqii rabbahu khamra wa ama alaakharu fayuslab markaasuu u bilaabay inuu fasiro maxaan daliilka maxalu shaahidkeenu socna waa maxay waxa weeyaan qof daaciga ah inaanu wakti gaara ahayn ee wadiifat alcumri inay dacwadu tahay qofka muslimkii any chance uu helo wakti kasta uu fursad helo in laga rabo inuu daaci noqdo diintiisa dadka gaadhsiiyo xataa hadduu maxbuus yahay oo uu qurbo ku nool yahay oo uu qariib yahay oo la xabsiyo oo la dulmiyo oo la cadaadiyo waxaasoo dhiba uu ku jiro haddana qofka mu'minkii inuu weli haysto saaxa uu diintiisa dadka ka gaadhsiin karo qofkii xorta ahaa markaa maxaad u malaynaysa ama waktiga haystay ilaahi subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu kaga warramayaa nebi yacquub am kuntum shuhada'a id xadara yacquuba almowtu id qaala libaniihi ma tacbuduuna min bacdi acbudu ilaahaka wa ilaaha aabaa'ik ibraahiima waxay leeyihiin yani nebi yacquub baa ilaahay wuxuu ina leeyahy subxaana wa tacaala miyaa xaadirteen oo joogteen ma markhaato ahaydeen waa soo xaadirteen markii nebi yacquub geeridu ay ku soo ururtay id xadara yacquuba almowt geeridu markaa u timid nebi yacquub iyadoo geeridu haysato wuu dardaarmayaa laakiin muxuu ka dardaarmayaa dacwa iyo diin buu ka dardaarmaya xoolaha aabbayaal markaan dhinto saydun odhanayo reeraha saydun loo dhaqmayo halkee reerka la de waxaa kama dardaarmayo wuxuu ka dardaarmayaa maa tacbuduuna min bacdi waar aniga gadaashay maxaydin caabudi halkaaad diintii dhigi doontaan dabeetana waxay leeyihiin markaasi nacbudu ilaahaka wa ilaaha aabaa'ika ibraahiima waismaaciila waisxaaqa ilaahan waaxida wanaxnu lahu muslimuun aabba waxaanu caabudi doonaa alle subxaana wa tacaala allihii waa caabudi jireen aabbayaasha ibraahim nebi ismaaciil nebi isxaaq wax kaloo aanu samaynaynaana ma jirtee isagaanu muslimiin u ahaanayna idan waa aakhiru laxda fii xayaatih ayuu nebiga kani wuxuu tijaabinayaa inuu mas-uuliyaddii dareemo ahayd in dacwada tani mas-uuliya ka saaranta inuu dadka gaadhsiiyo uu xaqiijiyo ilmihiisu waxay samayn doonaan isaga geeridiisa dabadeed idan waxaa laynoo tilmaamay nebi habeen iyo maalinba dacwo wada asluub kasta ama qaab kasta oo wax loogu yeedhana ku yeedhaya 950 sannadoodna waday waxaa laynoo tilmaamay nebi xabsi ku jira oo qurbo ku nool waddankiisii waddan aan ahayn jooga oo la dulmiyey oo lawcatlgurba iyo xabsi iyo dulmi iyo waxaasoo dhibi haystaan oo haddana jaanis yar markuu helo dacwadiisii wata oo tawxiidka dadka ugu yeedhaya waxaa laynoo tilmaamaya nebi naftu ka sii baxayso oo damaya oo ka dardaarmaya dacwo iyo diintii waxa laga yeelayo waxaa ilaahay subxaana wa tacaala inoo soo diray nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo noloshiisa oo dhammi dacwad ahayd oo isna xataa markay naftu ka sii baxaysay 5 maalmood ee ugu dambaysay mise xadiis baa laga soo wariya isagoo jiifa oo sakaraada oo xanuunsanaya oo xumadoonaya oo le ilaahay rasuulkiisii xumaddu xoog bay ku haysaa laleeyahy uu leeyahay laba idinka midi siday u xumadoonaysaa baan u xumadoonaya oo laleeyahay waa ajarka badan aad heli doonto sidaa u xumadoonaya ayaa haddana wuxuu ka warramayay war xabaashayda ha ka dhiganina meel a ku cibaadaysta ama ciid ha ka dhiganina wuxuu ka warramayay ahlu kitaabku ambiyadoodii iyo xabaalihii iyo wixii bay ka dhigeen meelaha ilaahay khayrkii lagu caabuday inaan lagu caabudin ama la dhisin ama wuxuu ka warramayay
fii aakhiri laxdaat baa la yidhaha nebigu maxaa ka mid ahaa waxyaabihii ugu dambeeyey markuu geeriyoonayay intuu iska fayday marada yuu eegay saxaabadiisiiyo tukanaysa oo abibakar tukinayo salaada ku jira aakhir kalimaad uu kusii warramaya waxay isagoo dardaarmayoo leh alsalaa alsalaa wamaa malakat aymaanukum isagoo dardaarmayoo leh allah allah alsalaa alsalaa wamaa malakat aymaanukum dadka ugu yeedhaya alle subxaana wa tacaala ugu yeedhaya inay salaada ilaaliyaan ugu yeedhaya inay xaqa dhowraan dadka addoomaha iyo wixii gacantooda ku jira qur-aankaa baa inooga warramaya in ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala mas-uuliyaddan siduu u dareemayo uu ugu warwarayo ilaahay uu kula talinayo inaanu naftiisa halaagin falacallaka baaqicu nafsaka calaa aathaari min lam yu'minuu bihada alxadiidi asafa ilaahay baa subxaana wa tacaala looga qalbi qaboojinaya inaanu naftiisa ku halaagin warwar uu warwaraya diintan dara mas-uuliyadda diintan in dadka loogu yeedho waxay saaran tahay qof kasta oo muslima qof kastana waxay u saaran tahay calaa xasabi taaqatihi wa qudratihi qur-aanka ilaahay wuxuu inooga warramayaa cid adiga kaa taag daran oo laakiin mas-uuliyadda tan xambaartay ilahay qur-aanka wuxuu inooga warramayaa shimbiraha ka mid oo mas-uuliyaddan xambaaray inuu dacwada diinta gaadhsiiyo o u xidhxidhan qur-aanku wuxuu ka warramayaa shimbir yaroo la ydhaha maxay hudhud soomaaliga waxa la ydhaha guuguule shimbirkan yare guuguula la ydhaha dhoorka yar leh ee meelahaasi jooga guuguule ayaa qur-aanku wuxuu inoogu tilmaamayaa intuu safray oo duulay inuu carriga ilaahay soo indhe-indheeyey oo dabeetana soo arkay duul dawladah oo boqortooyo leh oo wax walba haysta oo nicmaysan oon haddana ilaahay caabudaynin oo ilaahay khayrkii u sujuudaya dabeetana u safray inuu nebi u tago uga warramo duulkan iyo waxa ay samaynayaan si uu nebigu dacwadda u gaadhsiiyo waa shimbir laakiin xambaaraya mas-uuliyadda ah inuu diinta tan u adeego ilaahi subxaana wa tacaala qur-aanka markaa wuxuu kaga warramaya shimbirkaasoo warkii intuu soo ururiyey uu nebiyullaahi sulaymaan ciidankiisii intuu ururiyey uu waayayo uu hanjabayo oo dabeetana uu yidhi waa ciqaabaya haddaanu war saxa keenin ama wax keenin oo intuu soo noqday nebiga hortaagan oo le axadtu bimaa lam tuxit bihi cilma waxaanad koobin baan koobay axadtu bimaa lam tuxit bihi war aanad soo koobin baan soo koobay buu leeyay war khabar baan hayaa khabarku hayaa waa maxay waji'tuka min saba'in binaba'in yaqiin saba baan ka imi buu yidhi dhulka yaman la ydhaahdo ayaan ka soo duulay waa falastiin buu ka duulay yamanna wuu tegey waxna waa indhaindhaynayey yaman baan ka soo duulay buu leeyihi yamanna waxaan uga soo duulay waa maxay waxaan ku soo arkay innii wajadtu imra'atan tamlikuhum wa uutiyat min kulli shay walahaa carshun cadiim waxaan soo arkay buu yidhi gabadh dadkaba boqorada oo hanata oo wax walbana la siiyo nicmaysan inuu gabadh boqorada soo arko wax haysataa ma hiya almushkila maxay tahay dhibta ka jirta waa tan wajadtuhaa wa qawmuhaa yasjuduuna lishamsi min duuni illah wazayana lahum ashayطaanu acmaalahum fasadahum can sabiili fahum laa yahtaduun waxaan soo helay buu leeyahay duulkaasi waxaan ku soo ogaaday iyadiyo qoomkeedaba oo cadceedda u sujuudaya ilaahay sukadii subxaana wa tacaala oo shaydaan waxa u qurqurxiyo aan duul hanuunsan ahayn dabeetana khitaab istinkaariya iyo arrintaas siduu u diidan yahay buu nebi sulaymaan u sheegayaa laa yasjuduu lilahi aladii yukhriju alkhab'a fi asamaawaati walard idan hadduu dareemay hudhud guuguule hadduu dareemay in xil saaran yahay hadduu mushrikiin soo arko iyo cid aan ilaahay kayrkii caabudaysa inuu kuwa wax u sheegi kara uu u tago o yidhahdo kaalaya kuwan waxa loo sheegay xilkaasuu dareemay hudhudku in xil saaran yahay oo uu ka saaran yahay kuwan ilaahay kayrkii caabudaya inuu ka saaran yahay inuu dadka kan tawxiidka gaadhsiiyo inuu calal aqal dawrkiisa guto ah inuu u tago ciddii gaadhsiin lahayd dadka kan tawxiidka ma adigoo ilaahay waxaanu xoog iyo caqli iyo awood iyo raganimo ku siiyo bini aadamka ha dhigay baan dawr ku lahayn inaad diin dad gaadhsiiso shimbir baa dawr lehe adugu xaggaad joogtaa magaalo yaroo 3 rasuul loo soo diray oo haddana nin kale isna xilkaa isa saaroo qaaday waa meel 3 rasuul joogto maaha meel madhan qur-aanka ilaahay wuxuu inoogu tilmaamaya subxaana wa tacaala
واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. إلهي wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala dadka waxaad u sheegtaa u caddee tusaalaha kan qoladii magaalada deganayd ee rususha ay u timi baa ilaahay yidhi id arsalnaa ilayhim 2 waxaad u sheegtaa baa la leeyahy subxaana wa tacaala markaan u soo diray 2 culamada badh waxay ku fasiraan inuu nebi ciise uu soo diray laakiin maadaama ay ciise ka socdaan in lagu cabirayo inay yihiin ciisena dee ilaahay buu ka socdaa ay warkay sidaan warkii alla un inuu yahay haddii daahirkeeda wax diidayaa ma jiraan calaa kulli xaal hadduu ciise soo dirayna waa cid muhimmadan qaadi kartoo loogu talagalay inay qaado 2 la soo diro markaasaa la beeniyey mid 3aad baa laga daba keenay haddana facazaznaahum bithaalith 3 rasuul magaalo ay joogto oo dadkiina dhagaa furaysteen oo layshayaa ayaa ilaahay qur-aanka wuxuu kaga warramayaa wajaa'a min aqsa almadiinati rajulun yascaa magaalada halka ugu fog nin baa ka yimi degdegaya baa la yidhi ninka kan isagaa rasuul iyo sifaadkaa lama siinin qoladii hore rasuul bay ahayd ama min ha ka yimaadaa nebi ciise ama allaba ha soo diro rasuul bay ahaayeen amaa kan waxaa la yidhi wajaa'a min aqsa almadiinati rajul waa nin la nakireeyey magaalada halka ugu fog nin baa ka yimi baa la yidhi oo degdegsan ninkan degdegayaa muxuu wadaa waxa uu wadaa yaa qawmi ittabicuu lmursaliin ittabicuu man laa yasalukum ajran wahum muhtaduun waar tolkayow buu leeyay raaca rususha laydiin soo diray waa raaca kuwa hanuunsan waan wax adduunana idinka doonaynin qofku hadduu 2daas sifaba wada wato inaanu hanuunsan yahay isagu marka hore mar labaadna si wax brifatekiisa ama wax shaksiya ama waxuu isagu doonaya aanay jirin oo uu kaa helayaaba ee ilaahay dartii unuu kuugu yeedhayo dacwadu ilaahay dartii markay tahay bay wax dadka gala tahay walidalik baa rasuul kasta ilaahay wuxuu lahaa iclaanka a qaado sloganka ah maa asalukum calayhi min ajri baa nebi walba la yidhi waxaad ku tidhaha dadka waa anigu waxba idinkama rabo waayo hadday dadku is idhahdaan qofkan danbaa ugu jirta waxaa laga yaabaa inay tuhmaad badan keenaan laakiin haddaad danba ka lahayn dadka kan waxay arkayaan waxaad naseexa inay tahy ini lakum naasixun amiin haddaad tahay idan ilaahay wuxuu inoo tilmaamaya subxaana wa tacaala ninka kani isma odhanin war meesha 3 rasuul baa jooga adiga shaqadaad ku leeday waa maxay tuulada 3 rasuul baa taagan meel 3 rasuul joogto adiga waa maxay shaqada lagaa rabaa muu odhanin ilaahay wuxuu tilmaamayaa isagoo 3 rasuul joogaan inuu isna shaqada dhinaciisa ka wada uu leeyahay war hala raaco rusushatan macnaheedu waxay tilmaamaysaa marka ayuha alikhwa qof kasta oo muslima inuu saaran yahay xil ah inuu diinta dadka gaadhsiiyo inuu saaran yahay xil ah islaamnimada inuu mas-uul ka yahay inuu saaran yahay xil ah inuu dareemo inuu safiir yahay matalaya rasuulkii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam inuu dareemo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam inuu saxaabadiisa kula balliquu canii walow aaya inuu tilmaamayay ruba muballagin awcaa min saamic la arkee in mid la gaadhsiiyey uu ka weelayn bato kii wax maqlayba waxaa laga yaabaa mid aad adigu unu yeedho tidhi war laa ilaha illa allah iska dho ashaado caynkana in ilahay dadkaba ku anfaco isagu daaciga kama dambaystaa uu noqdo waxuu yeedho dhan ajirkooda insha allah adna waad leedahay laakiin adiga ilaahay wuxuu ku haleeshiiyey inaad isagun tawxiidka u laqinto oo diinta soo geliso idan qofka muslimka ah hadday dadka muslimiinta ahay maanta bilyuun iyo badhka ama 2 bilyuun ee dhadhowe dunidan kor saarani hadday mas-uuliyadaa dareemi lahaayeen caalamka intaynu kaga soo hoyan lahayn inuu islaamo mas-uuliyadaa jiilu saxaaba ay dareensanaayeenee ah intay islaamaan maanta inay noqonayeen iyagoo ducaada oo tolkood 1 iyo 2 iyo 3 baan idin tilmaamay lakiin saxaabada haddaynu ka warranno markuu xataa nebigu madiine tegey saxaabadii hore madiina timiyo dacwadda say u faafiyeen haddaan ka warranno sacd ibnu cubaada markuu isla reer bani cabdillashaal muxuu ku lahaa
wax dababa cuni maayo haddaydan islaamin tolkii oo dhammaantuu soo islaamay tolkii oo dhanna wuxuu ka rabaa inay islaamaan haddaynu ka waranno taariikhi saxaaba iyo nin waliba markuu islaamnimada soo galay iyo hamiga kan siduu u xambaaray ama u qaaday dadka kan hamiga inay diinta dadka gaadhsiiyaan baa ku weyna abibakar intuu islaamay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo qof u yeedhay oo ugu yeedhay dadka uga hor yeedhay oo diinta u sheegay oo islaamay ayuu noqday casharatu lmubashiriin 6 ka mida isagaa keenaa la yidhahda aakhiro fii wasni abibakar bay ku biirayaan cabdiraxmaan ibnu cawf cuثmaan ibnu cafaan zubayr ibnu alcawaam طalxa abu cubayda ibnu lja yani 6 nin oo ka mida baa la yidhaha casharatu lmubashiriin abibakar baa keenay waa qofku hadduu mas-uuliyadda dareemo goormuu keenayaa shalaa diinta loo sheegay qur-aanba wax yar baa ka soo dego makaa la joogaa waa maalmihii ugu horraysay laakiin bimujarad inuu wax fahmay ayuu qaaday dacwadatan qofku bimujarad inuu ashahaato laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulu llah yidhaahdo ayaa xilkani ku fuura waxaa ka mid a bini aadamku waxyaabaha ugu tirada badan leh uu u jabo hunguriga ka mid ah hungurigu dadka in badan buu diinta dhaafiyaa nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayey aakhiru saaca ama wakhtiga dambe inay soo bixi doonaan dad subaxii gaalooba oo gelinka dambe islaama ama gelinka dambe islaama oo subaxii gaalooba yacnii saaka mu'minnimu kuwaa baristay laakiin acmaashuu sameeyey baa gaalaysiisay gelinka dambe waa gaal ama saaka gaalnimu kuwaa baristay hadhow buu haddana ashahatay gelinka dambe waa mu'min waxyaabuhu ku sifaynaya kuwa waxaa ka mid ahaa inay diintooda dhaafsanayaan in yar oo adduunyo bidhbidhkeeda xoolo ayaa diinta weydaariyey bini aadamku wuxuu ka mid yahay markaa qadiyadda dhaqaaluhu waxyaabaha ugu tirada badan leh macsida keena ilaahay markaa tusaale wuxuu inoo siiyey gabadh kale oo muslimada waa ummu ismaaciil nebiyullaahi ismaaciil hooyadii oo ah nebiyullaahi ibraahim xaaskiisii waxaa ilaahay qur-aanka ku tilmaamayaa nebi ibraahim oo leh rabbanaa inii askantu min duriyatii biwaadin gayri dii zarc cinda baytika almuxaram rabbanaa liyuqiimuu الصalaata faاjcal af'idaة min annaasi tahwii ilayhim warzuqhum min aلhamaraati lacallahum yashkuruun nebi ibraahim oo ducada tan akhrinaya qisada tan saxaabigii ibnu cabbaas la yidhaahdaa siduu soo wariyey ee imaamu albukhaari uu ku soo saaray saxiixiisa wuxuu leeyahay ibnu cabbaas baa wuxuu leeyahay maka oo lamadega ah aan cidi joogin ayuu nebi ibraahim soo kaxeeyey haweentiisii haajaro ahayd iyo ilmo yaroo ay dhashay oo ismaaciil ah hooyadaa umusha ah oo nebigaasi wado ayuu wuxuu keenay saxaaraha carbeed meesha imaka maka loo yaqaano oo lamadegaanah wax adduuna wuxuu u siday qarbad ama sibraar ama saan biyo ku jiraan iyo weel kale oo waxoogaa timiri ku jirto qarbad biyaa iyo qarbad timira labadaa inood buu wax adduunana wataa dabeeto intuu dhigay meeshii ayuu ibraahim iskaga tegey waxaad qiyaastaa hooyo dayacan oo aan odaygeedii la joogin oo la geeyey meel lamadega ah oo aan cidiba deganayn oo cid u dhowo ay og tahay aanay jirin oo meesha la dhigay aanay baadiyo biyotoona oolin oo iyadu wax adduuna haysata hal qarbad oo biyo ah iyo hal qarbad oo timiri ku jirto ama laba shay laba weeloo midna timiri yari ugu jirto midna biyo ugu jirto markay aragtay ibraahim oo iska tegaya bay su'aal weydiisay waxay ku tidhi ibraahimow ayna tadhab watatrukuna xaggaad qabanaysaayoo nagaga tegaysaa bay tidhi markay aragtay ibraahim inuu xidhxidho iska tegey ayaa waxay tidhi xaggaad
intaadna dhigtay aad nagaga tegaysaa ma waxaad nagaga tegaysaa bay tidhi waadigan ama dooxadatan alladii laysa fiihi aaniisun walaa shay dooxadan lama degaa ee aan cidiba joogin ma halkaasaad nagaga tegaysaa bay ku tidhi nebi ibraahim lamuu hadal ee uu iska socdo kamay hadhinayana way daba socotaa oo ilmihii intay ka timay isagii daba socotaa oo su-aasha ku celcelinaysa mar qura muu soo eegin ee uu iska sii u qadaad jeediyey oo iska sii socday markii dambey su-aala weydiisay allahu amaraka bi haada ibraahimow sidan ma ilaahay baa ku faray bay tidhi intaad halkaana dhigtay inaad iska tagto ma wax alla ku farayba qaala nacam haa buu ku yidhi oo ilaahay baa sida tanna faray u fiirso gabadha tan siday ilaahay u rumaysnayd siday u rumaysnayd in awood dunida oo dhan ugu weyn isaga uu yahay in wax waliba biyadihi lmulk wax waliba inuu gacantiisa ku jirto dabeeta waxay tidhi idan laa yudayicuna haddaad alle nagaga tagtay allana dayici maayo bay tidhi ciddaad nagaga tagtay hadduu alle yahay subxaana wa tacaala ilaahayna ma dayacayo dabeetana way iska noqota ibraahimna wuu iska tegey waa tawakul cala allah waa gabadh tusaale ku ah qofka mu'minkii hadduu ilaahay rumeeyo oo uu jidkiisa ku toosnaado inuu ilaahay faraj u furayo waa gabadh ay ka muuqato iimaankay alle ku qabto waa gabadh ay ka muuqato markaasi hadduu nebi ibraahim sheegay arrintani inay wax xagga alle ka timi ay tahay inay ilaahay u hoggaansan tahay oo aanay ka warwaraynin hunguri ibraahim wuu ka tegey ibraahim laftiisa alla imtixaamaya oo ilma aad dhashay iyo haweentaada intaad cidlo dhigta ka dhaqaaq waa imtixaan ibraahim waxyaabo badan baa ilaahay ku imtixaamay nebi ibraahim waxaa ka mid ahaa in la yidhaahdo wiilkiisii markuu soo kobcay gawrac waa ilmihii uu dhalay baa la yidhi birta mari waxaa ka mid ahaa in dab lagu riday oo dad diin uu sheego dab lagu ridayey imtixaanaad badan baa ilaahay ibraahim mariyey qur-aankana ilaahay wuxuu ugaga markhaati kacayaa nebi ibraahim wax allaaliya wixii la geliyey imtixaan inuu fuliyey laakiin bal haweentiisana aan eegno nebi ibraahim markuu arkay inay noqotay ayuu buur yar ama taaga yar intuu ka dhaadhacay ayuu dabeeta istaagay isagoo ilaahay baryayoo leh ilaahayow reerkaygii waxaan dejiyey waadi lama degaana rabbanaa innii askantu min durriyatii biwaadin hayri dii zarc cinda baytika almuxaram ilaahu reerkii waxaan dhigay buu leeyay ama durriyadaydii waxaan dhigay meel lama dega ah oo beydkaaga xaraamkaa u dhow ilaahu waxaan u dhigay inay salaada oogaan ee waxaad ka yeeshaa quluubta dadka inay xaggooda u soo janjeedhsato ilaahu midho ku arsaaq waxay mudan yihiin inay kuu toobad keenaane inay kuu shukri naqaane gabadhii timirteedii iyo biyaheedii bay iska cabtay ilmaheediina naaskay nuujisatay laakiin muddo markay joogtay baa biyihii dhammaadeen iyo wixii ay haysatay dabeetana way harraadday markay harraaddayna naaskii wuu gudhay iyadiiyo ilmihiiba way isla surbacaadeen waxay aragtay ilmaheedii yaraydoo laba boglaynaya oo gaajiyo harraadu ku dhan yihiin oo iyana aanay waxba u haynin hooyo qiyaas meel cidla'a keligeed joogta oo aan cidnaba haysan iyo ciirsi toona oo waxay cunto weyday uu hor yaallana ilmaheediiyo gaajo la jiifi karila oo qaylinaya waxay isku dayday markaa ugu yaraan bal ilmaha inay ka indhaqarsato oo sidan uu sakaraadaya naftu u haysato aanay sii eegin dabeetana way iska socotay waxay fuushay buurta safa loo yaqaano safa markay kortay ay cabbaar ku taagnayd ama joogtay ayay haddana xaggii waadiga dib u soo jalleecday cidna way arki weyday markay cidna arki weyday ayay sidii qof daallan iyadoo ah iska soo dhaadhacday oo haddana dib u soo noqotay dabeetana buurta kale marwe la yidhaahda ayay gaadhay way soo eegtay meeshii iyana waxba waa arki weyday xag iyo xaggaba markay u kacday ee waxba arki weyday bay soo noqotaa kolna ilmihii bay xasuusataa bal soo eeg bay tidhahdaa inuu naftu ka baxo waa soo roortaa kolna buurta kale kortaa waxay tidhahdaa bal in dad iyo wuxuun aad alla kuu bixiyo aad aragto
toddoba jeer markay meeshii carcarartay ayaa gabadha tan ay soo noqotay. ibnu cabbaas wuxuu xadiidkaasi qaybaha uu rafcinaya uu nebiga u rafcinaya waxaa ka mid ah inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam fadalika sacyu nnaasi baynahuma. kaasi buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam waa sacyiga ay dadku meesha la ordo xajka labada buuroodoo la dhex cararo. markii ay soo noqotay kadib ayay cod maqasha, dabeetana iyadii baa isla hadlaysa, waxay tidhi sah naabala'aamuba iyadii isku leeday, nafteeday la hadlaysaa. dabeetana uma tasamacat, dhegtay raaraciso, waxay istidhi bal xoog wax u dhegayso. cod bay saani markaa u maqashay. codkiiba waxay ku tidhi markaa qad asmacta in kaana cindaka khawaasin, waar lagu maqal bay tidhi haddii aad wax tarayso, codkaaga waan maqlayaa haddii aad wax gargaari karaysa bay ku tidhi. waa malag ilaahay u soo diray subxaana wa tacaala. malagii ayaa markaasi cidhibta ama baalka ku dhuftay meel hoose, dabeetana il biyaa baa ka soo burqatay. meeshuu ku dhuftay biyihii markay ka soo baxeen ayay bilowday inay biyaha xerayso oo xawd dar yar ay u samaysato oo ay sacabka ku dhuuqdo. waatuu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam allaha u naxariisto ismaaciil hooyadii low tarakat zamzama, hadday ka tegi lahayd buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam zamzamkaasi, biyaha zamzam ha iska socdaane lakaanat zamzamu caynan muciina, waxaa zamzamku noqon lahaa buu nebigu leeyahy il dareerta oo dadkoo dhamme ay ka cabbi karaan. waa ceelkan zamzamka loo yaqaano ee xajka ku yaalla. gabadhaas baa ilaahay u soo saaray, way ka cabtay, markay ka cabtayna way darartay, dabeetana ilmaheedii bay naaska ku duwatay. malaggiibaa haddana la hadlayo wuxuu ku yidhi laa takhaafu dayca, inaad luntaan ama dayaca ka baqina buu ku yidhi, fa inna haada baytullah, halkaas buu yidhi ilaahay gurigiisiibaa ah oo wiilkanaad dhashee yar ee aad naaska nuujinayso maanta iyo aabbihiibaa baydkan dhisi doona, ilaahayna dadkiisa ma dayaco ayuu malagii ku yidhi. gabadha tani waxay mihaal u tahay gabadh kasta oo mu'minad oo ilaahay tala saarata oo aan ilaahay jidkiisa dhaafsiisanin hunguri. reeraha maanta yurub joogaa waxa u badanee la ysku dilaa waa adduun, waxa u badanee dadku uu waddankiisii uga tagaa waa adduun, waxa u badanee dadku xumo badan laga yaabo inuu uga dhacaa waa adduun. laakiin ilaahay gabadha tan wuxuu tusaale inoogaga dhigayaa inay tusaale qiyaamaha u tahay qof kasta oo dumar ah iyo qof kasta oo nin ah oo markaasi ilaahay tala saarta oo ilaahay awaamirtiisa raaca inuu faraj helayo. waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja baa ilahay yidhi, ciddii alla ka cabsata. waayo gabadha tani su-aasha qudha ay nebi ibraahim weydiisay wuxuu ahaa ma ilaahay baa ku faray bay tidhi sidan in la yeelo. markuu ku yidhi haayo ilaahay baa farayna waxay ku jawaabtay ilaahay nama dayacaya hadda. mar hadduu ilaahay sidan yidhi, dadka mu'minkaa waxa lagu yaqaanaa waxa weeyaan inuu yidhaahdo shaygan la sheegayaa qur'aanka iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam ma ku sugan yahay. haddii la yidhaahdo markaa haa, inuu yidhaahdo markaa uu fuliyo isagoo rumaysan dhib kasta oo ka timaada inaanu ilaahay dayacaynin. gabadhaasi karaamo alle uu karaameeyey daraaddeed oo loogu talagalay inay gabadha tani taariikh yeelato oo ilaahay ugu talagalay inay noqoto maclam ama tilmaam ummadda muslimkii ay tilmaamsato, ayaa ilaahay wuxuu ka dhigay acmaashay samaynaysay qaar ka mida arkaanta ugu waaweyn ee islaamiga ah baa ilaahay ka dhigay inuu mid ka mid oo noqdo. xajka marka dadku xaj tago meel baa jira la ordo, asacyu bayna safa walmarwa. waxaa loo ordayaa qofka mu'minkaa in dib loo xasuusiyo dadkii ilaahay rumeeyey ee halkan maray camalkoodii. yani waxaynu naqaanaa waxyaabahan loo yaqaano dabaaldega iyo waxaan la sameeya waxa weeyaan xus la rabo qofka in la xasuusiyo maalintani qiimahay lahayd ama ninkan dhintay qiimuhu dadkan ku lahaa. islaamku qofka ma xuso inta badan oo qofku ma aha waxa weyne la xuse, waxa la xusaa acmaashuu qofku geystay. sidaa daraaddeed baa islaamku sawirada iyo mithaalada iyo sanamada iyo waxaa la dhiso on lama rabo, waayo sanamku maaha qiimaha ee waxaa la rabaa qofkani camalku geystay. camalkuna waa wax taariikhoo la wariyo oo la qoro.
ilaahay subxaana wa tacaala gabadhaasi camalkeedii iyo kalsooniday alle ku qabtay si dadka muslimkii taariikhdooda aanay marnaba u ilaabin baa laga dhigay cibaado ka mida cibaadaadka ugu weyne dadka muslimiinta ay sameeyaan oo xaja madhabu shaafici wuxuu qabaa inuu yahay rukni aanu xajkuba asaxaynin haddii laga tago madaahibta kale ee culimmaduna waxay qabaan inay waajib tahay dam lagu kabi karo waa masale fiqiya laakiin waa maclam ama waa tusaale ka mida tusaalayaasha diinta wuxuu kaloo yahay ceelkaasi biyuhu ka soo baxeen ee barakaysan ee uu nebi maxamed leeyahay calayhi salaatu wasalaam maau zamzami lima shuriba lah biyaha zamzam waa wixii loo cabo ayaa ilaahay kaaga dhigaya biyaha noocaasi waa gabadha tan biyuhu alla u soo saaray subxaana wa tacaala waa min karaamaatiha waxa uu tusinaya oo tusaale ka yahay dadka mu'miniintii gabadhay ku dayan lahaayeen tay tahay wadaraba allahu mathala liladiina aamanuu imra'ata fircawn إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين إلهي القرآن كوحين وغشيكيين لا يدهد فرعون وحال كنت المامين بقرها وحالة المامين يي وليب بقر كبري أو قوقي وحالة المامين بقر إنو يي قوق انتو دافي إله نمشيكتي oo qooqiisu uu gaarsiiyey inuu dadka yidhaahdaa aniga ha lay caabudo ama uu dadka ugu khudbadeeyo maa calimtu lakum min ilaahin hayri ilaah aan aniga ahayn dada uu idiin garan maayo ama uu ku yidhi ana rabbukum alaclaa rabbigiina korreeya aniga ah ninka xadkaa gaadhay ee tolkiina gaalada ahaayeen ayaa ilaahay wuxuu tusaale inoo siinayaa gabadh mu'minada oo ibtilaaga intaa leeg u babac dhigtay waxay ka dhalatay gabadhani bulsho gaalo ah waxaa qaba nin boqor ah boqorku waa nin ilaahnimo sheeganaya fikraddaasi boqorku wato iyo dawladda iyo gurigaa boqortooyada gabadhii joogtay baa ilaahay rumaysay subxaana wa tacaala waxaa ilaahay inoo tilmaamayaa markaasi intay ka weecatay zawjkeedii iyo usradii gaalada ahayd iyo bulshadii gaalada ahayd inay ilaahay rumaysay oo ay caddaysatay iimaankeeda oo ay ku mintiday waxay tusaale u tahay gabadh kasta oo imtixaan qabsado oo qiyaamaad tidhaahda ninkaygiibaa dee gaal ahaa gaalaan ku dhex noolaa kan baan samayn kari waayey aasiya kamaad wadci xumayn uma taalla aasiya wadcigay ku noolayd iyo mashkiladdii haysatay taadu kama gedisnayn idan waa ibtilaa ilaahay uu gabadhaasi imtixaamay oo laynoo tilmaamay markaa wadaraba allahu mathala liladiina aamanuu baa layidhi marka tusaala looga dhigay baa layidhi dadka mu'miniinta ah tusaale waxay ugu tahay fii quwati aliimaan tusaale waxay ugu tahay inaanay caqiidadeeda dhaafsanin manaaficda dunidao dhan haddii laysu keeno ninkii lahaa miyaydaan arkayn waxaan webi hoostayda dareeraya waxaan boqortooyo haysto waa boqorradaa taqaaniin ee xabaalahoodii ay yihiin waxyaabaha dunida maanta ugu cajabta badan leh ahraamtan masar ka dhisan waa meelihii ay ugu talagaleen xabaala ay ka dhigtaan meelaha dunidu maanta ay ka yaabantay sida loo dhisay raggii xabaal ugu talagalay inay ka dhigtaan ayay khilaaftay oo ay iimaan ku khilaaftay waxay sheegaysaa markaasi inay mithaal u tahay gabadha mu'minadda ee dhabta ah taasi waa gabadh ayay ahayd ka hor tagtay gaalo iyo odaygeediyo gaala iyo dawlad dhan oo gaala is hortaagtay tusaale labaad haddaan soo qaato ku saabsan cunnada ilaahay qur-aanka wuxuu inoogaga warramayaa haweenay alle bariday oo weydiisatay ilmo khayr qaba in alla siiyo oo ilmaha khayr qaba dabeetana ay masaajidka ama macbadka ay ilaahay dartii ugu nadarto ilaahay uu siiyey gabadh markay uur yeelatay odaygeedii uu dhintay dabeetana ay gabadh noqotay iyadu wiil bay islahayd buu noqon doonaa laakiin ilaahay gabadh buu ka dhigay gabadh wiilasha ka fiican gabadhaas waatuu nebi moxamed tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ilmo kasta oo la dhalo markuu dhasho shaydaan baa gujiya maryama iyo inankeedii mooyaane buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maryamo iyo inankeeda mooyaane qof kasta oo dhasha
shaydaan baa gujiye buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixaynka ku soo arooray maryama waxay mihaal u tahay gabadha daacada laasimta hadday gabadha muslimadda ahi ay daacada ilaahay laasimto in ilaahay iyadana adduunkeedoo dhan u ururinayo waxay mihaal u tahay karaamaadka la sheegiyo awliyada waa maqashaan dadku inay yidhahdaan hebel karaamaa ka dhacday akbar karaama qur-aanku uu sheego gabadh baa iska leh marka laga yimaado mucjizaati alambiyaa ee qur-aanku karaamo dhacday oo uu ka warramo qof mu'mina ka dhacda kuwa ugu waaweynee uu qur-aanku sajilay waxaa ka mida taa maryama waxay noqotay gabadh cibaado badan oo habaryarteed riwaayaadka qaarkood say sheegaanna walaasheed ayaa waxaa qabay nebiyullaahi zakariya dabeetana zakariya kafaalo qaadoo koriyey guri nebay ku kortay waxay noqotay gabadh cibaado iyo iimaan lagu canqariyey oo diin nuugtay oo ku kobocday oo ku kortay oo ka shaqaysa meeshii alle lagu caabudayay baytullaahi ka shaqaysa cibaadadeedii markay tiro badatay xad bay gaadhay karaamaadka ka dhacaya qur-aanku uu sheegaya uu tilmaamayo inay cunno meesha taalle ugu iman jirtay iyadoo aan shaqaysanoo meelna qabanin ilaahay baa wuxuu tilmaamayaa intuu nebigii u soo galay markaa inuu ka yaabay un cunnadan meesha taalla weliba mufasiriintu waxay yidhahdaan cunnada loogu iman jiray waxay ahayd cunno khilaafsan ta dadku uu haysto yacni beeraha waxaa jira raashin xagaaga go'a iyo raashin jiilaalka soo go'a wakhtiga qaboobaana dhir gaaraa baxda wakhtiga kulaylaana dhir gaaraa soo baxda marka kulayluhu jooga maryamo waxaa loogu yimaadaa bay idhaahdaan wixii go'i jiray wakhtiga qabowgana waxaa loogu yimaadaa iyadoo haysata summer timeka midhihii go'i jiray waa waxaad u cajiiba nebigii baa la yaabay gabadhan yar iyo cibaadadeed iyo waxaan ay haysato dabeetana wuxuu yidhi yaa maryamu annaa laki haada naha maryamay xaggaad ka keentay buu yidhi arrintan raashinkanuun meesha yaalla xagguu kaaga yimaadaa su-aashaa buu weydiiyey waxay ugu jawaabtay qaalat huwa min cindi illaah ina allaha yarzuqu man yashaau bigayri xisaaba ilaahay buu ka yimi bay tidhi ilaahayna cidduu doono isagaa arsaaqa xisaableeyey gabadha tan karaamadii ka dhacday waxay xasuusisay nebiga kani inuu dib alle u baryo nebiyullaahi zakariya waxba ma dhali jirin waanu gaboobay haweentuu qabayna waxba may dhalayne way gabowday odaya islaan gaboobay bay ahaayeen dabeetana nebiyullaahi zakariya isagoo nebiyaba gabadhan yar cibaadadeed iyo karaamaadkan ka dhacaya markuu arkay ayaa waxay ku bixisay inuu dib alla u xasuusto isna alla baryo inay suurtagal tahay isagoo da'daa gaadho islaantiisuna da'daa joogta in ilaahay ilma siin karo hadduu ilaahay baryo subxaana wa tacaala ilaahay baa qur-aanka markaa wuxuu ku leeyahy hunaalik dacaa zakariya rabbah halkaas baa ilaahay yidhi markuu arkay zakariye gabadhaan shaqo teginoo halkan iska fadhidaaba inay wax cunayso halkaa markuu arkay buu ilaahay baryey buu alla leeyahy subxaana wa tacaala qaala rabbi hab lii min ladunka duriyatan طayiba inaka samiicu ducaa ilaahayow duriyad fiican beer fiican isii buu yidhi adiga ducada aqbalee ilaahayna wuu ka aqbalo isna nebi yaxyaa la siiyey maryama waxay kaloo tusaale u tahay gabadh kasta oo qiyaamaha cifadeeda dumisa oo tidhaahda waan baahday bay tusaale u tahay walidaalik baa ilaahay subxaana wa tacaala qur'aanka wuxuu ku ammaanayaa ammaan gaar oo ay leedahay oo ah inay dhowrsanayd oo aan hunguri qaadin saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyay wamaryama bnata cimraana alatii axsanat farjaha fanafakhnaa fiih min ruuxina wasadaqat bikalimaati rabbiha wa kutubih wa kaanat min alqaanitiin qiyaamaha gabadh kasta oo cifadeeda ku xadgudubta oo dhallinyaronima qaado oo magaalo gasha oo tidhaahda waan adkaysan kari waaye meel xun baan joogay waxaa la leeyahay maryamiba way adkaysatay wax bini aadam yeeli karo ayaad adigu dumisay maryamiba ilaahay tiisii bay raacday ee adaad diiday alle tiisii inaad raacdo waxa ilaahay uu tusaale inooga dhigay maryama
inay aakhiro ibtilaaga ay u noqoto gabadh kasta oo lagu dhex ceebeeyo tolkeed laakiin iyadu go'aansata inaanay ilaahay jidkiisa marnaba ka weecanin inkastoo dadku ay waxay doonaan ka sheegayaan waxay doonaan dad ha sheegaane gabadh daahir oo cifadeeda ilaahay uu ka markhaati kacay oo haddana bulshadii ku xeerayd iyo dadkii la noolaa ay ku ceebaynayaan inay gabadh xun tahay bal ee ay ku leeyiin markay arkeen iyadoo uur leh ama iyadoo ilma sidata ay ku leeyihiin maad ahaan jirin adiguna gabadh xun waxaad ahayd maa kaana abuuki imra'a sawin wamaa kaanat ummuki bagiya yaa ukhta haaruun bay lahaayeen aabbahaana ma xumayn hooyadaana gabadh suuqa gashay ma ahayn adigu waxaan xaggaad ka keentay bay ku lahaayeen qiyaas inan yar oo cifadeeda dhowratay oo ilaahay caabuday oo bulsho haddana la dhex timi iyadoo uur la un waxa dadkaasi ay odhanayaan ama waxa la sheegayo intee dhib gaadhaad u malaynaysaa gabadhaa miskiinta ah ee cibaadadeeda wadatay ee la arkay un iyadoo uur weyn leh bale la arkay iyadoo ilma sidata maxaase dadku ku odhanaya ilaahay waa ka yuhuud markuu ceebaynayo ku tilmaamaya waxyaabihii lagu nacdalay yuhuud inay ka mid tahay maryamo waxay ka sheegeen buhtaankii weynaaye ay maryamo ka sheegeen inuu ka mid ahaa laakiin qofku hadduu ariiqa alle laazimo ilaahay baa u ballan qaaday inuu faraj u furayo maryamo yaa difaaci lahaa haddii la yidhahdo inantani waxba may samayn iska daaya yaa dhegaysanaya ilaahay baa difaaco wuxuu ku difaacay waxaanay dadba filaynin maadaama cirdigeedii iyo sharaftideedii dad uu ku xadgudbay ilaahay baa difaac u sameeyey yaa difaac u noqday maryami yaa laytanii mitu qabla hada wakuntu nasyan mansiya markay lahayd ayaa ilaahay faraj u soo furay oo waxa la yidhi dee gabadh tolkeed ku dhex ceebowday waa inay iska tagtaa markay iskaga tagtayna cidla markay u baxdayna wax la cuniyo waxba toona ma jiraan waa gabadh umula oo hadda umulaysa dabeetana calaacalkii bay tidhi bal maan iska dhintaba ama tu aan laba garanayn ilaahu maad iga dhigtid bay leeday markay aragtay dhibta haysataa intay leeg tahay ilaahay baa faraj u furay oo waxaa lagu yidhi geedan timire aad joogto jirrideedun yaro taaba baa la yidhi ilaahay baa kaaga soo da'inaya rutaban janiya timirtu marka malabku ka da'aya ay jilicsantae aanay engegin ee sida malabka loo dhuuqo oo kale taas baa ilaahay kaaga soo dejinaya halkanna biyo kacab baa la yidhi hoostan hoosana biyo kacab timirtaada iyo biyahaaga isku cab oo waqarri caynan baa ilaahay yidhi ishaaduna ha doogsato waxba ha warwarin anaa faraj kuu furaya baa ilaahay leeyahy ishaaduna ha doogsatee waxba ha warwarin maryamo waxaa la yidhi tolkaa markaad u tagto adigu waxba ha isdifaacina iska aamu ilmahan yarun farta ku fiiq kanba alle ka hadlinaya isagaa ku difaacaya adigu iyo waxba ha qabanin iyadu ilaahay bay adeecday ilaahayna wuxuu tilmaamayaa farajkeedu siduu noqonayo adigu waxba ha isdhibin baa alla leeyahe mujarad waxaad samaysaa ilmahan tilmaam faashaarat ilayhi baa alla leeyahy ilmihii bay u tilmaamtay qaaluu kayfa nukallimu man kana fi lmahdi sabiya jees kalaa la bilaabo waxaa la yidhi waxaan yare dharabta saaran maxaanu kala hadalaabay ku yidhaahdeen markay tidhi anugu hadli maayo ilmahan la hadla kan maxaanu kala hadlaa baa la yidhi waad iswareerinaysaa une kii yaraabaa alla ka hadliyo wuxuu leeyahy qaala inii cabdullah aataaniya alkitaaba wajacalanii nebiya isagoo dharabta saaran buu leeyahy wardadow ilaahay addoonkiisii baan ahay nebi baanan ahay ilaahay baana kitaabi siiyey waa ilmo la sido ayaa saa sheegaya ilaahay baa difaacay cirdigeedii iyo sharafteedii ilaahay baa u difaacay subxaana wa tacaala waxaa tusaale idinku filan qur-aanku uu tusaale u bixinayaa gabadh hooye ilmaheedii lagu weeraray laakiin uu alla faray wax adag hooye ilmo ay dhashay in la yidhaahdo ilmahaaga qaado baddaa ku ridoo iskaga tag anaa badbaadinaya intaad aqbali karaysa in lagu yidhaha qaad ilmahaaga oo intaad qaaddo baddaa un dhig dabeetana liivin ka tag adigu ilaahay baa badbaadinaye ummu muusa nebiyullaahi muuse hooyadii ilaahay baa qur-aanka inoogaga warramayo waxaa la yidhi qaad ilmahooradoo baddaa dhigoo iska dhaaf adigu markaasaa ilaahay u ballan qaaday weliba
آيات القرآن إلهي وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. إلهي وحوت الماما يا آيات لبا أمر يا لبا نهي يا لبا خبر أيا كسغن وحال أوت الماما يا سبحانه وتعالى ilmaha naaska nuuji baa la yidho haddaad u cabsooto hadduu boqor amar buu soo rogay ninkii kibreeye waddanka haystay uu leeyahay waddanka dadka ku noolee reer banu israa'iil la yidhaahdaa dumar mooyaane rag ma dhali karaan wixii ay rag dhalaan waa inuu dhintaa oo la dilaa wixii dumarana ha la daayo shaqaalaha noqdaane dawladdii amarkaa markay soo bixisay hooyadiina muuse hooyadiioo haysataana ay meesha joogtaa ilmahan xaggay qabadsiin way warwartay ilaahay baa wuxuu yidhi markay umushay waxba ha warwarine ilaan intay uurka lahayd lama garanaynin wiil iyo gabadh waxay sido laakiin markaa umusho khatar bay ku sugantay waxaa la yidhi ilmaha kan adigu naaska iskaga du laakiin dee ilmo yari miyuu ku aamusaya wuu qaylinuu wuu ooyiyo xaafadaha iyo jaarku waa lagu ogaanaya in ilmo meesha joogo marka uu rabshada bilaaba haddaad cabsata baa la yidhi in adigu badda ku rid qaado baddaa iskaga rid dabeetana baa ilaahay ku yidhi ha biqin hana murugoonin anigaa soo celinaya oo weliba rasuul ka dhigaya baa ilaahay yidhi anaa kuu soo celinaya isagoo weliba rasuulna noqonaye waxba ha u biqin haweenaydii qalbigeeda intay xidhxidhay bay ku ridday ilaahay baa u badbaadiyey waxa uu qur-aanku inoo tilmaamayaa walaal inan walaalkeedu khatar galay oo uu gacan gaaleed galay oo la faraya inay basaasi tagto waa inanay noloshu badday tol kale weydiiya cid wax u dhicisa oo la yidhi orodoo wax soo basaasoo soo dhegedhege bal wiilkii halku ka dhacay oo weliba loo diray mishanka ah inay boqortooyada qanciso ilmaha kan in cid u hayn karaysa ay jirto qiyaas inan yaroo walaalkeed loo baqayay oo ay ka baqaysay boqortooyadu inay disho oo ilmihiina gacantii boqortooyada uu ku dhacay oo loo diray mishanka inay ku guulaysato inay walaalkeed badbaadiso waxay tusaale u tahay gabadhu haddii ay mu'minada dhaba tahay inay qalbiga xidhan karto aanay baroor iyo baqatoon aanu ka muuqan karin inay iyadoo mishankaasi fulinaysa ay u tegi karto ninkii dadoo dhami ka baqaya dadoo dhan laynayay inay u tegi karto weliba iyadoo ku doodaysa inay hayso wiilkan cid badbaadin karta waa muuse walaashi hooyadeed waxay tidhi nabalorodoo isha soo marmariyo eeg way bidhbidhaamisay waxay ogaatay in gacantii boqorrada uu ku dhacay dabeetana way u timo waxay tidhi waar anaa idiin haya cid u fiican oo korinaysana naas nuujin karta waa la shakiyey bay yidhahdaan mufasiriinta iyo waxaa la yidhi ma waxbaa isu tiiniyo waa kanoo may bay tidhi waxa uunaan ilmaha kan cid dhowrtaan u haya yani way awoodi kari waayeen inay qalbi jileec la timaado oo ama ay muujiso inay ilmaha kan walaalla tahay ama ciddan loo diray inay hooyadeed tahay hooyadii waa la faray ilmahaagaa badda ku rid anaa ilaalinayana ilaahay intuu ilmaheedii u soo celiyey baa weliba lacag lagu siiyey iyadu markii hore waxay u baqaysay in la dilo badda ku rid baa lagu yidhina laakiin ilaahay intuu ilmihii soo celiyey baa la yidhi weliba lacag ku qaado oo ilaahay ilmaheedii naasihii dumarka kale oo dhan baa alle ka afxidhay oo wuu diiday nebi muuse naas kaleba inuu nuugo isagoo ilmo yara kadibna markii islaantan loo keenayna wuu iska jaqay waxaa la yidhi markaasi ha jaqee bal koriyo kharashkanna weliba ku qaado waa radaacadii ilmaheedaa weliba lacag lagu siinaya waxaa ilaahay tusaale inugu siinayaa qur'aanka haween dani ay badday inay shaqaysato waalidkeed gaboobay oo da' noqday aabbaheedoo da'a guriga jooga walaalana ma hayso u shaqeeye cid biilisa duruuftu waxay badday inay xoogsadaan qur-aanka ilaahay wuxuu inoogu tilmaamayaa haweentaasi siday u dhaqmi lahayd mithaal baa layna siiyey nebiyullaahi muuse markuu ninka soo dilay ee soo baxsaday ee meel maraya waa kii geedka yimi meel xoola laga waraabsanaya buu yimi
dabeetana wuxuu u yimi ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يسدر الرعاء وأبونا شيخ كبير wuxuu yimi laba hablood oo xishmadi ka muuqato oo aan ragga dhex boodaynin ee ceel la wada joogo dar dadkii oo dhammi u soo arooray oo xoolahoodii wada laakiin iyagoo aan ragga dhinac ordayna xoolahoodii gaar ku haysta oo sugaya intay nimankani ceelka uga baxayaan oo marka raggu ceelka uga baxo ku talagalay intay u tafaxaytaan inay xoolahooda waraabsadaan waa laba haweena oo iyagu reerka xoolahoodii raacayo ilaalinayo u shaqaynaya aabahood waxay ku yidhaahdeen muuse markaa waxaanu nahay laba gabdhood oo aan xoolaha waraabsan bay yidhaahdeen raggu inuu meesha ka tago dadkan wax waraabsanayaa mooyaane aabbahayana bay yidhaahdeen waa oday gaboobo dan baana badday inaanu sida tan yeelno muuse markaasi wuxuu yidhi anaa idiin waraabinaya soo horta xoolaa marka muuse nin xooggan buu hayo xoolihii buu hablihii u waraabiyey dabeetana xoolahoodii markii loo waraabiyey bay kaxaysteen waxay ahaayeen hablo caqli badan oo ilaahayna baraya inay ku tala galeen inay mishankan shaqadan ay hayaan si kale ay u oofiyaan inay heli karaan faraasadoodii iyo aragtidoodii waxay gaadhsiisay muuse inuu yahay nin karti badan oo reer lagu aamini karo aabbahood waxay u soo bandhigeen aragtida markaa nin ay guursadaan oo reerkana haya in la heli karo may ka xishoonin inay masaladaas soo bandhigaan aabaheed intay u tagtay bay waxay ku tidhi yaa abad qaalat ixdaahumaa yaa abat istaajirhu ina khayra man istaajarta alqawiyu lamiin bay tidhi aabbow bay tidhi ninka kan abaal mari cid la abaal mariyana waxa u roon nin xoog badan oo ammaano badan muuse laba shay bay ku tilmaameen waayo markuu muuse xoolaha u waraabiyey wuu iskaga tegey waxba muu weydiisanay wuu caawinayo intuu u waraabiyey buu geed hadhkii iska tegey muuse ilaahay buu baryey isagoo leh alle subxaanahu wa tacaala leh rabbi innii limaa anzalt ilaya min khayrin faqiir ilaah waxaad xoog iyo awoodi siisay buu leeyay maanta cidlaan ka fadhiya waayo isba wuu soo cararo waxba ma hayo geed buu iska hoos fadhiya wuxuu leeyahy ilaah waxaad awoodi siisay ee khayr aad ii dhiibtay maanta cidlaan ka jooga faqiir baan ka ahay labadii habloodna intay aabbahood ka yimaadeen oo la soo tashadeen bay u yimaadeen muuse waxay yidhaahdeen markay qisadii u sheegeen ayuu odaygii yidhi bal iigu yeedha ninka markii ay u yeedheenna fajaa'at ixdaahumaa tamshi cala istixyaa ilaahay wuxuu sifaynayaa hablahani ninkan markay la hadlayeen siday u dhaqmayeen iyadoo nalamnoo ordaysa may soo geline waxay u yimaadeen baa ilaahay leeyahy iyadoo si xishmadi ku jirta ay u soconayso xishood iyo astaan waayeelnimo iyadoo ay ka muuqato waxaanay ku tidhi aabbahay baa kuu yeedhaya oo raba inuu kaa abaal mariyo wixii aad noo shaqaysay ee xoolaha waraabisay inantu markay lahayd aabbaheed ninkan abaal mari kumay odhan abaal mari xoolo uu inoo waraabiyo oo shaqadiisiisii ee waxaad mooddaa inay mustaqbalka dan kale ka damacsanto oo ah ninka kan sifaadkiisaay sharxaysaa waxay leedahay shaqana wuu qaban karaa ammaano iyana wuu leeyahy yacni raganimona waa leeyahay diin iyo ammaanona wuu leeyahy waa labada kriteer waa labada sife ee qof kasta shaqo uu ku qaban karo inuu qofku shaqada tan aqoon iyo awood cilmiyeed ama jismi u leeyahy inuu qaban karo iyo inuu leeyahay ammaano aanu tuug ahayn labadaa sifo qofka haddii laga helo waa waxaa qof kastoo shaqaalaha lagu shaqo geliyo idan aayaadkan waxaa laynoogu tilmaamayaa hablo ay duruuftu badday inay reerkoodii u shaqeeyaan oo dabad u shaqo tagaan oo guriga ka baxaan laakiin wuxuu ilaahayna barayaa inaanay ragga iska dhex ordaynaynay si gaara u shaqaynayeen oo wax gaara ay qabanayeen waxaan leenahay qur-aanka waxaasoo dhammo ku yaalla waa amhila ama waa tusaalayaal dhammaantood u tusaale ah qiyaamaha inaanay baxsan karin gabadhu iyo odhan karin anigu nebiyada kumaan dayan karaynin ee nebiyadu rag bay ahaayeenoo iyagu waxaasay qabanayeen ee annagu maanan haysanin